ورياه إن هذا هرتا مضحنون كأدون كنينكي صدق هذا كان عضو كصوبحي شقة الآن واسكتها وردا ما يقرأت سي الله لا يسانو يالتي أبلاي قريب سوا خير هبل مد ما حن كراب خير هبل ومكون قلينيا وردا ما يقرأت مد حتى جيت بوجا صلاة من بق بطلق كينا وحنا صباح يوم مسك التهريب ترى هل يراه ninkii saddexda jaamacadood ka baxay ee tahriibnimo ku soo caan baxaa taro ya saasaba wanaagsan tiinaad heeg mid waan gartay inta maxaan ku rahday adoo saddex jaamacadood ka soo baxay inaad qof bili aadana u shaqo tagto taasaba ceebo Soomaa saddex hadda jaamacad ka soo baxdo adigu ma dhakala timaadid shaqo abuur iyo hawl iyo keen ma adigu wax keeni karin adigu waxay dadka shaxaadayso waxa sababta ku soo raadiyay waa ogahay meeshaad iga jirto nin baa iga jiray tala qabeen baan ku yiri waan soo daaniyo dhaka keenbal maxaynu sameynaa ana dhaka ku haya anigu qodaydo niyahow de kula mid baan ahaayo waa anigi labada jaamacad ka soo baxay ma garatay bariyahan sidaas uma maskaxda uga shaqaysiinaya waxaan lahaa niyo dhaka keen ana dhaka ka garatay shaqo soo marabti lacag inaynu sameynayna soo marabti haye ana haya meel ay ka furantaan haya laba fursadood oo dahabi ah haya magaalada ka banaan maskaxdu waa cajiib moogta bahasha hadaad ka shaqeyso waxay keenaysaa maxaa ka kale bay keenaysaa moogta laba mihradood banu furana mid waa shaahle midna waxa weeye waa baalashle anu xagga shaahan ku fiicana ta shaahan qabanaya adiguna baalashka dadka inoo imaanayo deenu shaaha ka iiminayno ayaad adna waxaad u galaysaa maxaan ku raday baalashka shaah iyo hadama ay galato baalashku miyuusan ahayn kii dee kii kuu casaynaya kabaha baalasheynay madoobeynayay dee wax kala mid kala hadda ka hadlaynaa talada baad wariyaahe waxaan islahaa ninku waxba kugu dhaadayso video dhowr bilood baan ka maqnaayo maxaa waa lagu fuuqsaday siirooda dee ma inaad talada baad dhageyso qofka horta eeg ama tala keen la yiraahdaa ama tala keen noqo ama tala raac noqo moogta warada may garatay wariyaa ورياه الرذر عقل حوم أما إسكت تهريب إليه أما شقان كوها يا دكا كينيو إك دكا هرتا إدقي صورتا عن كاغا دعي هي إك شقada sababta loo yeeso waxa loo yeeso baalash le shaah le waxa loo yeeso waa shaqadu meesha ay taalo shaqadu haday imika taalo bilbeetro kale baalash markii leedahay inamada yar baalashka ka shaqeeya dee waxaan ku raadayay bishii qaar baa 700 shaqeeya qaar baa 800 dollar shaqeeya qaar baa 1000 dollar shaqeeyaniyo war hadda ma garatay adigaagan suudka xirana sida tanade miyad sameeysaade iska daa adige kuwa dawladda u shaqeeyaniyo sameeyniyo oo lacagaha aan sameeynin war hadda ma garatay shaqada 700 iyo 800 malaha 700 ma shaqeeyo 8 dee horta waa sababtan ku la dhigayso moogta shaqada horta shaqo la yeeso hadaad aragto shaqo la yeeso hadaad aragto shaqada sababta loo yeeso waa meesha la dhigo eeg baalashlihii maxaa la dhigayaa meesha meherada ugu daran wadada wasakhda boor ku dhacayo isagiyo wasakhaysan kii sameynayay eeg meesha shaqada halka kagama shaqeynano shaqada maxaynu sameynana ma taqaanaa shaqada waxaan u furanaa laba meheradood oo isdhinac yaala iminka ma waxaad leedahay ninkii saddexda jaamacado ka soo jaamici ina baalash maxaa tiri baalash inaad ka shaqeyn maaye haye baalashka adigu imika baalashka ma ka shaqeynaysaa waxaad sameynaysaa qolka magaalada ugu quruxda badan ayuu kareysananaa kadibna waynu sharaxaynaa muraayad baan ka dhiganaa baan ku qolkoo dhan qurux baan ku yiri warada ma garatay kabaha meel waxaan u sameynanaa ay dadku fariistaan oo qurux badan loogu baalasheeyo warada ma fahanteen adigu oo ninka baalashlaha ah ma aha dee inaad tiraahdo baalash baan lahay waxaad soo xiranaysaa imika suud ma xirantaa wali xitaa waxa ka dhiman taygi baa ka dhiman war ma garatay waxaad suud baad soo istaagaysaa suud baad ku soo istaagaysaa taygiisi wata kaba buura kuwaaga ka bilaabaysa marka hore subax kasta inaad baalashaysto waa inaad clean noqoto adigu labisan tahay quruxsan tahay qolku uu quruxsan yahay meesho dhan waa inay dhalaalayso kadibna waxaan ku yiri shaqadaas in la yeeso maalintaas u dambaysa kiyubay soo galayaan iyo inta magaalada joogta kiyubay inay inaga dhinac furaan mooyaane shaqadaas maalin dambe oo warshaha miyaada arag eeg shaqada sababta u jabanta u liidato waa meesha la dhigo hadaba ay garatay
iminka maqaaxidan aynu de halkan aynu maxaan ku rahdaa aynu hadda shaaha ka cabno waa 0.1 ama 0.2 way koobkii shaaha maqaaxida kale hoteelada waaweyn ee yara quruxda badan ee maxaan ku rahdaa meesha qaar baa $2 u shaahu yahay hadda kuwan aan ka shaah fiican iyaga dhuxul intay ku kariyaan maxaan ku iska qaban karin maysa rinjiga waa risiin baan ku yiri laakiin sababta u kala duwan yahay waa maxay sababta u kala duwan yahay waa shaqada meesha la dhigay iyo meesha waa nadaafada meesha quruxda badan kuraasta quruxda badan dadka ku shaqeynaya quruxda waa inta lacag lagaaga qaadayo shaahana hadaynu saa u hagaajino lacag baan ka sameyn waa meherada markaan fiiriyo maskaxda aan ka shaqeysiyay labada fursadood ee magaalo kasta ka furan heedhada ee ugu lacagta badan waa labadaas niyo soo diyaar garowniyo haayo inaad waataan la yaabay laba maqaaxiyadu saa iskugu dhigsan baad midna shaaheedu waa $1 ama $1 iyo bar midna waa $0.1 marka waxa shirkada iga yaabisay so waxa un kaliya ay ku kala duwan yihiinba waa intan ninkana meel nadaafsan xoogaa buu nidaamiyo wuu qurxiyo clean buu ka dhignina ya haddaad hadlaysaaniyo soo labada mihrood baynu furaynaa waxaan ku iri lacagta inaga taabanana niyo jaamiciya ka dhakaa la keenaniyo ilaahi iyo bilaahi waa talo ya